صافي waxaan ku horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku boogadhay alxamdulillah ma caafimaad qabta hadana maqalnay arrimo kalena way ka dambeeyeen TikTok oo dhan rabad bay wada noqdeen dad rabada hadda joogan dad caadi ah haysano TikTok xaaladuhu way iska adag yihiin Ilaahay khayr ka dhigo khayr Allah ka dhigo waxaasoo dhan waxaa ka weyn maaragtay dareenka dadka maaragtay qaaliga ee maaragtay jecel inay dunida guuleysato isbedel dhaco boostara xataa waa sameynaa daahiro waxaan ku dhahay ilaa labada dacale laga soo galo Muqdisho ilaa dhinaca looga baxo aan aniga maaragtay against kufsi oo boostara waaweyn aan ku dhajin doonaa magaalada dhan aan ku dhajin doonaa anaana sameynaa dowladda uun fasax iiga soo qaadiyaan dabada xabad leeyga gelinina ileen waa wada kufsadayaal haaf ku jiro dadkee ina adeeray manaaley weligay dadku ma tashanin haddaa isadaqayso weligayna isma dhihin micnaha bini aadan ayaa waxna kuu dhimi kara waxna kuu soo kordhin kara laakiin waxaan ogaaday inuu ilaahay adoomadiisa isu adeejiyo anigoo aan filanayn oon isdhehaynin daahir ayaa kuu soo adeegaya manaaley ayaa ilaahay daahirku waa kaasaa banaanka soo dhigdhigay marka waxaa ogaatay adoomada ilaahay ayagaa maaragtay isu adeega oo ilaahay isu soo adeejiya oo iska soo adeejiya oo maarto isu qabta anigana maanta cidaan wax u dhimay ma jirto cidaan dilay ma jirto cidaan caayay ma jirto cidaan dambi ka galay ma jirto anaa dambi tabanaya haddii la diidaayo maxaa dambi u tabanee la leeyahayne hadda qoomul faasiqiin aan nahay in la halaagaa dhici karta anigu mar walba sabarka xaggiisaan jiraa raggaan anaa og waxay igu dhigeen ilaahayna marqaad ii ahaa maanta haddaan nabaay raggaas waa horay soo qayli lahaayeen ay dhaaran lahaayeen ay dhihi lahaayeen warana laga qabto mar horay soo qaalin lahaayeen absolutely ha taawla wadawga waa xaqiiq marka xaqiiqda cidna kama talaabsan karto xaqana isagaaba feeraha ka dilaacay ani waa la quursada waa ogahay laakiin quursiga la quursaday ilaahay ima quursanin ilaahay subhanahu wa ta'ala warta ma quursan warun ilaahay ima quursanin bini aadanna quursigiisa waxba igama goynaayo banaankaas cad anaa soo istaagay anoo cimrigaan jira awlaad leh xaas nin leh aan bartaas soo istaagay lama dhihi karo ninay raadinay lama dhihi karo lacagay raadinay lama dhihi karo waxna laakiin ilaahay albaabada ha balaqo ninkii maanta qalbigiisa mariid yahay wuu iga sii jeesanaa barkee wuxuu rabaa xumaantu inay sideeda ahaato laakiin qofki wanaagsan oo dhan waa aniga sayidkayga waay ayagaana iga badan baani ayagaaba iga badan horta maama Saafiya Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan kaaga rajaynayaa guul waanad guuleysanaysaa biidhnillaahi alkariim qofka dadka bilaa caqliga iyo dadka rayiga gaaban iyo dadka maangaabka iyo dadka inta ku garaadlahana wax ay ka hadlayaan iyo waxay sheegayaan baa iska yar adigu dhibaatadii ku soo gaadhay ayaad ka hadlaysaa qof dareensan baad qof nool baatay qofku markuu dhintay uu gad galo kaliyaata ayaa samraa laakiin qof nool oo maxaa la dareensan wixii ku dhacay ayaa ta Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan kaaga baryaa inta aan dibada noosho cimri dheer iyo caafimaad qab Allah ku siiyo adigoo noolna Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa inuu guushaado ifka u soo baxdo waanay u soo baxaysaa waanay dhowdahay bila aadan bila caqli ama bila dareena ama calooshiis la ciyaara ama labada cisho meel soo ka fikirayo Allah maxay tiri dhowr sano ka hor waxaasna dad qof kasta caqli loo ma joojinayo marka waxaan ku weydiiyay Saafiya waad maanta sawiradoodii waa tan wala soo safay wax wara idinkoo WhatsApp-ka isla tagay igu dambayso leedihiin xagga maxaa dee soo kordhay anigu waan iga dambeeyo meel baan ku mashquulsan haddaan idin imiday walaahi taas daahira iyaga mas'uul ahaa aniga mas'uuliyadeeda walaalkeen u xil saaray marka isaga okay qaal marka insha Allah qofka moderator-ka haya soo ha soo qabto manaal bay u degtay gabadhi kala haday tagtay soo ha la soo saaro soo qabo karaaniga maxkamadda ha la soo qabto kuwin soo guul baan ku rajaynaynaa maama Saafiya maamo markasta iyo waqti kastaba guul baan ku rajaynaynaa hore u socod baan ku leenahay dadka ku sabaadsan ama ku taageersan baan qof kasta oo damiir leh dastiga kuma jirto qof kasta oo damiir leh ama dareen bini'aadnimo iyo mid dumarnimo mid hooyanimo mid walaalnimo mid gabadhnimo ku jira uma malaynayo inuu iska nacnacleynayo marka hore u socod ku leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala ha ku barakeeyo
waxaan kaloo halkan ka rabaa ummadda Soomaaliyeed maama dahaba iyaduna iyo maama gabadhii maamadii cadar oo iyaguna hooyooyin aad u dulman ah oo intaasoo sano caruurtooda ka maqayeen oo kiiska bartan lagu furfuray oo muddo aan weli waxba ayaan bal maantana u fadhinaa biidmillah hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan maama Saafi maama dahabo cadar iyo dhammaan inta dhiban ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan idinka baryaa inuu Ilaahay farash khayr qaba idin furo inuu Ilaahay idin meel kastood ka tabanaysaan idinka midiro inta caruuri ka maqanta caruurtooda Ilaahay u soo dhaweeyo inta dhibti ku dhacday adigoo kalaana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u boogadhayo idina soo fududeeyo ayaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala walaal idinka baryaa dhamaantiin marka bal waan sugaynaa daahir baan sugaynaa biidmillah alkareem inta reportka laga dhigay inta waxaan ku wari inta ya ha arrimo way iska fara badan yihiin Ilaahay khayr ka dhig waan iska mudkaan galayba ماما صافية abaayo dahaba waa ku salaamay xabiibti ilaahay aan kuu baryaaya macaan inuu ilaahay caruurtaada ayagoo caafimaad qabo nabad qabo ilaahay isu kiin keeno ama aad u tagto biidnillaahi kariim adigana xaqaagii oo dhagadhan oo waxba ka maqnay ood ku farxda ilaahay ku horkeena maama saafiyey آمين hooyooyinkana inay gabdhahooda hooyooyinka iyo aabayaalkana inayna gabdhahooda quursanin ay cashir ku qaataan Allah u kaso ay fahmaan dariiqada aniga aan ku hadlaayo iyo sababta aan u hadlaayo biidnillaahi kariim daahir diini iyo cabdiriyal soo qabta soo qabade waa soo qabtay niyo waa u diray ku wareegaya I don't know saafiyey waad nala sii joogi doontaa intii wax yar ka bacdi fiiri daahirow whatsappka hal mar iga waa qabaamay soo dhaqan karaa haddii dad la soo saarayo waa soo laaban karaa maba doonayo kiiskan victimkan dahabo iyo gabadhii kalan inaad wax ka joogtaan jeclaa lahaa walaalay walaalahay waa yahay kuwiinna waa joogtahay kheyr allah idin siiyahay walaal maxamed aawadow waa ku salaamaya iyo daahir diini iyo dhammaan maama saafi artamamada waxaan la ilaahay kiiskeeda soo fududeeyo ilaahay garabkeeda istaago inaad guulaystaan aamiin wuu ka soo bixi doonaa adigu asaga shaqo u haysaa niyow daahir diinow horta waxbaan ku weydiinaya horta maamo anigu run ahaantii inaad guulaysan doonti iyo in kale de ilaahay subxaana qaadir ahaa og ilaaha guusha ilaahay bayna ku xidhanta laakiin Soomaali inkaar baa ku kala dhacday caawa qolkan waxaa laga yaabaa in la joogaan dad hooyadood iyo aabahood iyo walaalahood iyo familkooda hortooda ayagoo arkay inta lagu birbireeyey ilaa haddartaan dadkii birbireeyey ay yaqaanaan laakiin cadaalad wax u horkeena ay laayihiin laakiin cabdiriyalow ma aaminsan tahay haddaan dadaalno inaan gacanteena ku wanaajin karno waa kuwa mama hadda fiiri anaga dowladdeeniyaa burburta guryihii baa la kala qaatay batari baa la isku guray dadkii baa isbirbireeyey reere dhan baa la rogay dad dhan baa Soomaali ka go'ayo naf iyo maal waxba aan loo reebin kuwa waxaa jira qabiil isku laayay haddii maanta la yiraahdo waa la kala gurayaa maxkamadaha la isku geynayaa horta taas waxay noqonaysaa dadka wax yar inta laga soo reebo intii xilligaas dhalatay ka bacdi dadkii hore dhan nag laga dhigo laakiin ma ka wanaagsanoo hay cabdiriyalow inay inta banaanka imaadaan dembigan waa galay ummadii ay arkayso walaalow adi gurigan kaa dhacay xoolahaagina maanta waxba iima taraayan waxaaga iga hoo adiga waa ku dilay raalli iga noqo adiga waa ku kufsaday ya ma fahamtay haddii ay dhacday la adduunyada way dhacdaa nin dembi galay iyo nin ka soo laabtay oo yiraahdo dhibkaan sameeyay I'm sorry waa waxa ugu weyn ee adduunka qofka ku qanco maanta day dadkaas I'm sorry ku dhahan ummadda public ku arkayso adaaba xishoonay waxa leedahay subxaanallah ani adoon ilaahayaan ahay aan ku kala harna meeshaas ma fahamtay laakiin cadaalada helaysa oo ummadii cadaalad ku falaysa markaas oo gabdhihii kale wixii ku dhici lahayna kuma dhacaayaan mar daba ma dhacayso marka cabdiriyalow ma fiicno Soomaalida in la isku keeno oo la kala saaro camerada iska ilaali daahir aaw ma wallahi horta midda kufsigu waa another case oo taas wax la yaqaan qofkii geystay qofku marqaati fur hadii la helo gaalada iyo wadamada ay joogan kufsiga waxaa laga yaabaa horta in cadaalad boqolkiiba boqol in la helo meel aan Soomaaliya ka ahayn oo dhan meel intaan wadan kasto cadaalada laga helaa wadan kasto cirbada lagu duraa kuwa waa la toogtaa kuwa qorta laga jaraa kuwa waa la xiraa sanaday ku jiraan intaasiba wadan kasta cadaalada taal
except waddankeena odayaa imaanayo lacaguu qaadanaa gabadhii la kufsada xataa dirac uma iibinayo mac salaamow leh xoolihiisuu ku tagaa ma xoolaan nahay marka anaga la iibsanayo ma nihin dad nooloo karaamo lahaanahay ani haddaan karaamo yeesho gabadhaada karaamo yeelane see waay ilaahay maa laga baqo ma horta adigu mar walbaba xaqaas taas ha ka harin ilaa naf aad dhimatid dhib badanna waa la kulmi doontaa waxay u baahan tahay adayga u baahan tahay waa riixaynaa akoonka noo soo fur arrintaada okay weeye waxa walwalayo wax abshira waxa ii soo daahir bi maqle hal mar WhatsApp iga qabo noqon minutes gobonimo dhintay moqta cabdiriyal ma horta wallahi illa soo qabta hadii la helo looyaro oo meelo badan loo san oo maartay dadka Soomaaliyeed arrintan si dad damba ugu dhicin garab fiican la helo laakiin Soomaalidii iyadii baa hoos qasi iyo dad meel u socdaan la garagaranay maalinkan soo fadhiistaan waxaan ku iri wiilkii ila hadlay aniga hari maayo ilaahay inuu i reebo mooyaane waqti hadduu dhammaado qof haraysa male timekeygan ku dhimanaa laakiin waxaan ku soo harayaa anoo helay guushaydii haddaan waayana ilaahay agtiisa ka sugaaya inay gabdhahan yaryarkaa la gumaysanaya guryaha ku dhex jiree aamus la leeyahana aan kasoo wada jiido aa igu ballana hadduu ilaahay nafta ii dhaafo xaq waa dilaacaya xaqu si sahlan buu ku soo baxayaa waxay u badan tahay dadkaas oo dhan inay liinta xabsiga ku cabaan qof walba meeshuu joogo lagu xiro 100% taas u dhow laakiin waxay u baahan tahay dadku inay si fiican ku garab istaagaan dad badan oo waxaa jira maanta qof baa wuxuu rabaa inuu ku qariyo kiis qofkan anagu nagu cid yahay yaan la ceebayn midka kula dhashay waxaa laga yaabaa in lagu soo adeegsado oo madaxa kaa gooyo marka laftirkaaga isku badnaa insha Allah Soomaalina kale ku garab taagan tahay waan guuleysan doontaa wareedaan cali soo adiga maadaama arrimahan aad khibrad u leedahay waxa kula hadlayana waa wasiirkii xukunka caawa anigu waxaan ridayaa Maama Saafi la garab istaago wayna guuleysan doontaa insha Allah akoonkana Allah furo cabdiriyalow daahiraan rabaa inaan weydiiyo maanta haddii aan dhinto maxaa samay lahaydeen oo beri lay dilo ka soo qaat maxaa idinka qaban lahaydeen gadaashay maalma inta oynaa waxaan u malayn kolley Soomaalida saas weeye qofka ma ogtahay maalintuu dhintay xoogaa yar ooyaan amaanan laakiin maalintuu garab u baahan yahay ma garab istaagaan inta badan marka ma aqaan wax la samayn doono Maama Saafi way fiicneed xaq bay ku taagneed baan dhihi doonaa marka ka waran haddii adduunka aad qofka ku xaal mariso ileen adduunka ani waxaan arkay dad oo shahaada la siinaa waxaa la leeyahay beerahan uu ka shaqeeyay wuxuu ka shaqeeyay wasaaraddan shahaada kale oo soo qaadanaa journalist oo ahaa daahir cali sow lajan oo ahaa shahaada la siinaa garabaatiya loo suraa waay annaga markaan dhimana garabaatiga la igugu suraa oo anoo noolna la igugu diidaa daahirow qabadeeno telefoonka xilliga digirta laga daahir cali sow xilligan oo kale niyo daahir uu ka soo baxay ka jawaabee daahir diini Maama Saafi nimankii xumaaya dulligaa waxay igaga daran kii kale sabaaxad iyo farjiribka kula dhacay xalay toole ma la qabtay kaa mise isaguna iska taxtaxashaya Maama Saafi Maama Saafi ka maxaa ugu sameeyay ilaahay baa ku dhaarshay walaashaydii horta alxamdulillah inaan dhaha waaye aniga waxaaba moodaa raggaan in laygu soo imtixaanay xataa godobaa soo gashay oo qof baad adoo yar soo qashoo lagaa goynaya haddaa isdhihi lahaa waxaaba ahaan lahayba mogtaa dembiilan ahaan lahaa oo aan isleeyahay waxasaan lagugu dhibaayo dembigaas gashay ما دمي ما تقولين وايد حنا الدنيا ما مصافي مؤمن كان لا دبا marka wanaagsan baa la dhibaa dunka lagu dhibaa
marka alxamdulilah walaashaydi maanta maxkamadda go'aanka u dambeeyay maxay ku gaartay arrintan maadaama daahir diini muxuu iiga aamusay su-aashii waa uga jawaabay muxuu iiga aamusay nimankii yiri $50,000 daahir oo ku siinaynaa kiiskan maayo maama nimanku waa sidaa markay jawaab waayaan way aamusaan habartaan waalana naga daji hadduu daahir ka yeeli lahaa soo caawa banaanka layguma dhigeen banaanka kama ooyeen marka daahir diini oo kasoo jawaab waxaa tiri magay ku siinaay ma ninkaasaa mag ii quure mise raalli ahaa washa ii quure waa laga keenoo dantaa keente ورا تاجرياش عادي ما قفكي هلا وارنتا نيجاتيف uga hadlaa waxay leeyahay halla tuuro bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi taageerayaal dad badan Soomaali badan aad qalbiyada aad kasbad inaba caadi ma aha waa la kala baxaa budo iyo biya loo kala baxaa anaa kuu sheegay maama saafiya sheekadu way iska cadday jawaab buu u waayay muudku ku xarooday nimanku waaba dabeecadoodaba marka jawaab waayaan maama saafiyay marka arrinka dhinaca u dhaqaajiyaan waayaan sidaas ay isku adkeeyaan kulligood waa isku mid hada meela socota maama saafi u joojin mayno maama horeynu soconaynaa arrintaadu banaanka imanaysa ama muud hala galo ama hala iskiijiyo ama qaar feeriyo laad suuriya la soo tuuraha soo yaacaan maama saafi maama meela socota hore u soco allah ku barakeeyo ما فهمي كران دادكو حنونك قفكي سومر بس با فهمي كرا ما مسافي $1,000,000 ما انت لسي مليمو وحا اوغا قيرونا لهيد نين كميد نين كاسال كاي ماذا اي هذا ولا شيء سوري العرور بانها شيطان بيكا اهاتي نفي الشيطان يقرها لي اهو وانا كحومهاي I wish inaan gadaal u siyaareed inaan soo dib u soo celi kari lahay maanta inaan caqligan leeyahay aanan lahaa lahayn daardiina tuur dadka maxay u leeyihiin daardiina maxay ka rabaan iyo ma iska dhaaftay iikaadi ana jawaabay iikaadi fiiri dadka horta dhahaya tuur yana blog yana kulligeen mudeen ku gurin taa waa qodobka labaad maama nimanku markii ay offer ku siiyeen ay ku dhaheen $50,000 qaado hada accept tiraadid marka waa iman lahaayeen apologies kala waa raacin lahaayeen laakiin marka refuse la timid ama diiday wax wada hadal ama wax negotiation ayaguna naftigooduna dib bay u baxayaan sida caadi ah shaqo yar wali waa inafta diiniyo aniga qofka ku qaado maxaa kugu dhacay maya xataa daahir wuu sheegay hadalka laakiin wax ii soo jawaabay oo qadkayga soo galay ma jirto marka ma aha inaad tiraahid waxbaa diiday xataa waxaa laga yaabaa aniga lacag doon haddaan ahayaan ku dhahay 5 sano ma ooyeen 5 sano ma ooyeen 33 sanana lama noolaadeen cuqubaday i gaarsiiyeen iyo aafadii iyo uurku taaladii marka hadday lacag micno leedahay aniga ilaahay sal ii baaru lacag ii dhigay alxamdulilah oo ehel waxaan ka soo jeedaa ilaahay barakee ma fahamtay laakiin noloshayda aniga ay ii qaas tahay eheladayda uga soo go'ay dadkan anigu ehelkayga markaan ka cararay ayaa maama saafi marka su'aal xagee bay ka timid 15 kan oo offerka lagu sameeyay xagee ka timid xagee laga keenay hadalkaas su'aal si macna waa la maxkamadda la siiyay taasoo hidaayada ma ahayn maxkamadda ahayd wala sheegay walaalkay daahir weydii daahir soo laabto isaga 50 ka meeshu kala yimid weydiinayna sida caadiga ah nookaadi markaadi u soco inay dad u soo dirsadeen daahir ee u soo sheegeen waabad maqlaysay maxaad u leedahay ma ogi oo isaga dhigaysaa daahir oo adiguna ma meel yar oo qaranjuufa ku gaarto qabiil yar oo cidda ma ku jirta ii sheeg ina adeero anigaba walaalkay dhagta wuxuu ii jabiyay anagoo reer imaana hadalkan ha sheegin oo dhagta ii fujiye adiguna ma saasaad naqat qalad ay fahmin aniga hadaan kula jiraa xanuunkaaga waa xanuunkayga maamo Soomaaliyeed baa tahay laakiin waxaan anigu hadda daba galsanahay ama aan rabaa inaan ogaado $50,000 ka meeshay ka timid anu marka hore waxaan moodayay hadalku sidoo ii dhaafay maadaama aan hawlo ku jiray daahir iyo dadkii la soo diray iyo wixii dhan oo ku sheegay anigana taleefanadu waa ii soo diray daardiin anaa kuu sheegay inaad abti anaa kuu sheegaya walaalkeen ninka la yidhaha daahir calisow ayaa hoos loogu soo qoray gabadhan geb ka dhasheekadeeda niyo anaga haddaan hoos wax kuu siina ka waran
waa wax saas oo daahir lala soo wadaagay wax gabadhu face to face loo yimid ma ahan waa war la soo qoray oo daahir loo soo qoray oo daahirna shaashada uu soo saaray oo yiri kiiskan iska drop garay lacagtan soo ku siinayna niyo kor uga baxadiga maadaama maxkamad ay ku furanta gabadha wax loo yimid ma aha daahir okay fiiri offerku ma wuxuu ku socdaa daahir inuu qaato si offerka waxa weeye maamadan siinayna lacagtaas kiiskan joojiyo daahir inuu qaato oo gabadhan iyo waxaan iyo qaacaan iyo waxaan ka dhaxbax adiga lacagtaas aan ku siinayna kiiskan kor u tuur gabadha lacagtii loo keenay dadka dhibka gaarsiiyeen ay ku raadeen marka Afsoomaaliga inuu qaldan yahay ku sheegay baa loo leeyahay marka gabadha magteedan bixinayna toos ma loo yiraahdo adigan ku afgaranayna arintan naga drop garay way dhaheen markuu daahir diiday dad qaas ah ayaga ka socdo oo la sheegay ayaa daahir u yimid oo dhaheen maaragtay gabadha noo soo gali qadka yani gabadha magteedana way ogol yihiin wiilasha marka haddayba magta ay ogol yihiin markii hore maxaa ka keenay offer qaadee naga tuurnaagtaan haddii ayna dadkan ayna dani ka keenin ilaan daahir waa nin investigate yaqaano wada keeni kare cid walbana waa ogtahay ma in mag way ogolaadeen magtaas marka burceelow wixii inaad fahmin ugu marka wixii inaad fahmin hadda xaqiiqada heshay daar hal mar siyaada nabti mag way ogol yihiin $50,000 ayaan dhiibaynaa daahir maanta uu keenay 50 kilaaluushka ahaa ma ahayn oo maalin dhaweyd 50 magteedu waa 50 halaad ayay ka soo qaadeen hashiiba waa $1,000 marka 30 iyo siyaado sano xanuun ay la nooleed ya $50,000 maxay yani sanadii UK ay ku nooshahay $50,000 sanadii ku baxdaa ay soo martay ama iyada shaqaysa hadday shaqayso $50,000 bay shaqaysaa marka 50 halaad macquul ma noqonayso waana sharaf dhacayo inta qof la dilaa la leeyahay adduunyada kale waxa lagu kala qaataa qofka $1,000,000 qof la dilay carabaho kale laakiin anigu 50 kan halaad ma fahmin ama 100 kan halaad oo hashiiba ay $1,000 joogto waaba easy iska dil qofka macquul ma aha daahir waxa uga faa'iideysanaa in walaalkii guraceel iyo daahir diini inaan hal wax u sheego daahirow maxay ahayd waxaa jirtay gabar imaaraatis ah oo gurigeeda albaabkeeda garaacaysa habeenada kamid ah waad soo ogaa kartaa haddii aniga aan sheekadan sheegay ay been tahay gabadhaas imaaraadka ah booliiska roondada oo ku qornay habeenkaas xaafadooda ilaalinay ayaa soo ag istaagay 2 nin ayay ahaayeen iyo 3 ma ogi markaas waxay ku dhaheen inta albaabka laga furaayo soo gal baabuurka ku dhex sugay ku dhaheen gabadhii imaaraadka ahayd markay baabuurkii gadaal ka soo fadhiisatay ayaguna booliis yihiin ay aamintay ay isleedahay gurigan waa laga furi doonaa dadkan booliiskana kursigooda ku joogta waa dadkii wadanka ilaalinay gabadhii way la baxsadeen waxay la tageen meel duura wayna kufsadeen ilaahay amarkiis markay kufsigii ku dhameeyeen ayay carabka foodiisana ka jareen ee maqas uga gooyeen waxay islahaayeen haddii la helo yaynan hadlin gabadhii oo dhiigayso rafaadaysa isbitaal la geeyey isbitaalkii koomo ku gashay gabadhii mudday koomo ku jirtay koomadii ka soo naaxday ilaan waa la ogaaday in la soo kufsaday wixii dhanaa la ogaaday markay carabkiina waa ka go'antaa ma hadli karto qalin iyo buuga loo keenaa la yiri maxaa kugu dhacay waa lala hadlay ilaahay amarkiis raggii ku fooraaray nambarkii baajkii ugu qornaa kilkishooda korkeeda naaska korkiisa baajkii oo gabadhii oo sax ah ayay maxay ahato warqadii qalinka ku qortay daqiiqadii la wada raadiyay raggii la soo wada helay xukunna lagu riday marka waa inaad ogaataa in adduunyada ay tahay yani xaqsoor meeshuu ka jiro nolol raaxale lagu noolaanayo imaaraadkana waad aragtay siday ummadoodana riij u tahay noloshooda u qurux badan tahay ilaahayna ugu gargaaray qisadaas haddaad been moodaana dib u soo baara weliba waa idinka kala reebay yani dhibaato xunay gabadha gaarsiiyeen carabkana way ka gooyeen si ayna magacyadooda inay booliis waaye ayna u dhihin ilaahayna wuxuu qadaray ninkii oo ku fooraara inay baaj nambarkiisa xafido oo indhaheeda ilaahay ku qoro baajkii kilkishiisa ku qornaa naaskiisa korkiisa marka adduunyadu saasay u shaqaysaa laakiin Soomaali maalinkay fahmayso allahna gaarsiiyo oo ay fahamto in adduunyada saas ay u shaqayso ilaahayna xaq raali ka yahay laakiin intaaba saan isu haqranayno oo kan garabkayga joogay haqranay oo kan ila dhashay xaqiraay
oo cid walba iga soo horjeedo idinkana nabad waa idinkaga dhamaatay ilaahayna caradiisu waa idinku dhacaysaa cara allana allah ku rido Soomaali Maxamed kuwa ku eegta kuwa dulumka ka seexdaan cara allah ku rido oo masaakiinta dhibaateeya oo ka aamusa oo qabiil u magaciisay cara Hashtag Mama Safi Justice. Hashtag Mama Safi Justice. ku maqan yahay wax yar maaha ee bal aan sugno maaha manaale Mama Safi call bay soo galay maxay ka hadleen waxaa iri daahir wuxuu ku maqan yahay caawa wax yar maaha aamusi allow qeyrso waxaan ku maqan yahay marka ma kiiskaaga laga soo waxa laga yaabaa ma okay haye bal waynu arki doonaa waxay ka wada hadlaan walla iyo bilay iyo tale Mama Safi waan yaabanay anigu yap arrin la isla dawri horta Mama Safi arrintaada oo kala war baan ku hayaa dee arrintaadan u dhow oo exactly sidoo imika adiga ma aragtay ay isku nabayaan aanay dadkan u soo dhaqaaqaynin aanay u hadlaynin aanay codkooda u maqlaynin arrin sidaas oo kale bari dhowtana soo martay haye arrinta waad aragtay baan u malaynayaa gabadh nin intuu guursaday Imaaraadka ku guursaday dadna waxaan soo qaadsiiyay Edis la socotay TikTok ma maqashay oo gabadhii oo ninka ka soo dacwootay si kasta intan niri Mama Safi oo waxaan ku si kasta niran xaggan u rognoon xaggan u rognoon xaggan ka leexanoon booliiski dhaxgalnay Ingiriiska iyo say wallahi kacday oo Mama Safi xitaa Soomaalidii Ingiriiska iyo booliiska iyo wax aan meel laga kicin jirin baa ninkii si kasta inta la yiri ayaa la soo saari waayay Mama Safi wax xitaa war hadal dhageysta nin difaacayo dhahay isaga inta wacay dhahay waa la inabay oo wareysi bixinay Mama Safi waxa dhacday inanka xitaa Cabdi Xaafid wariyaha ah oo yacni isaga intuu soo waristay iyo dadna hadalkii soo gaagaabay waa kuwii Soomaalida ku kacday hayay waxaan ku Twitter-kii bay ugu daateen waxay ugu daateen Facebook-kii bay ugu daateen WhatsApp-kii bay ugu daateen inankii baa yaabay inankii markuu yaabay buu yiri subhanallah big buu yahalaf buu yiri wuxuu sameeyay ninkii buu la hadlay ka diiday wuxuu yiri aan hadaba waan si yar oo farsamaabo hadaba isku baraxay big yahalaf buu yiri warqad buu yiri soo samee warqad kelmad oo maxaa la dhahdaa dadkii wad fahmi waayeen ayuu big yiri TikTok buu u yeeray TikTok wuxuu ku yiri ninkan uu soo baaray markuu soo baaray kelmadaas ku qoran maxay tahay kelmadaas waa kelmad positive baa la yiri horta inankaasi sidaas uu isku bariyeelay waxba yaran hadalku gudda dhakhtarkii uu iska soo qaaday Soomaalida waa taqaanay intay ka wada qaadanay screenshot bay Soomaalidii Ingiriiska joogtay iyo kuwii Afrika joogay iyo kuwii meel kasta joogay baa dhakhtarkii lagu daray manaale war minid muuska ii galaala hadalka ku hay adduunyo waxaan joognaa macaankii ka dhamaatay kowdhaha intuu daahir maqaya dhaqaysana daahir ma jooga horta aniga ma gelin haduu joogay waxaan joognaa adduunyo macaankii ka dhamaatay Maxamed soo qaba naag ayadoo kaamirada fadhido leef ku jirto
shaqaysanayso kaamirada intay ku furantay yaa lugeeda way haysataa ma fahmaysaa naase waaweynna kuma yaalo jiisna ma ahanoo haddii lugaheeda biro kuma jiro naagtaas ordaysa oo laan dheerahaayo dhirarka badan oo quruxdeeda ilaahay siiyo waayo soo sheeg hal mar i weyne ii kaadi waa ku weyneynaa ii kaadi haddaa maqlaysaan intaadan anigii soo fiirin waxaad fiirisaa boon xamarow fiiri backgroundkiisa soo eeg ninkii naasahaaga wareejinayana waa asaga ninkii naasahaaga wareejinaya waa boon xamarow haddahana kuwasa haddana siilka u dhiga dee maxaa aniga iga cayne cayba ma lihiin agtaa shadafta loo qiimaha lahoo tiktoga sadhex fadhidaa ahayd qurux haddii la dhahaana carnaaga haddaa taa kaamiradaas soo fadhisa kaamiradaasna soo fadhiisanaa no way haddaad dhali karina waa isoo dhaweyn kartaa laakiin alxamdulilah qiimaha aan leeyahay qaayaha aan leeyahay quruxda aan leeyahay waa ku qabsoona waan ku fiicana ismana qari aniga kaamirada dhabarkiisa dambe intaan ka hadlo yaa taleefonkaaga heer waxa gaartay adoo qayilay sidoo marqaamay sidoo tiktok ku jirto inuu faar ku qabto sidoo hooyada kugu dhashay aad u qaawileed xataa kastuuma aadan wadanin rajabeeta aadan wadanin yaa waxaa maqli jiray indhihii ku arkay ayaan daranaa indhihii ku arkay hee ayaan daranaa adduunyo waxaaba joognaaba zaciimaba soo caynaysa ka war adduunyo waxaa joognaa aabaheed wasta ah oo macaankii ka dhammaatay qurux haddee noqotona quruxdaasaan leeyahay weli video ani aan beejkayga soo dhigay snapkayga aan screenshot ka qaaday haddaan sawir geli lahaana see kula noqon lahaa sawir haddaan geli lahaana see kula noqon lahaa naagtaas quruxda badanaa ama quruxa igu gaartaa ama saqaaya igu gaartaa no way naagtaas she's beautiful quruxdana taraabtiyaasheedii ayadaa ka keentay waa naag guverna saca siciida oo iska dhala kala jaan ma ahan oo habartayna daaroodna ma ahan qulux iyo qalxqalaxna ma gasho naag reer macaala oo reer cali oo laandeera iska kee dhashay anigana naag reer ayaan laa qaar ka sara ka dhiishaa ahay weligeedna adduunkana laguma arkin gabar ayaan la sacada ama gabar magaca saca siciid sheegatoo fool xumaaya marka eedda macaan naag haddaa tahay kaamirada soo fadhiisa kaamiradan soo fadhiisanaa labadeena ninkii naasa weynaa la arkaa haddaan dhaho xataa ani anoo qaawana mara aan banaanka baxaya xataa naas igama muuqdo xabad nin inaan leeyaha la ii maleeya alxamdulilah marka caga dhigo haddaa caga dhigan weysan anuu gurigaaga kasoo baxaayo bas raacayo sidii hana abuukaraan video cc camera uga soo duubaan kaaga soo duubaa haddaa caga dhigan weyso adoo biro ku dhutinaayo oo socotid aan video kaasoo duubaa le arshaqan ku ordaa basaan raaca dhug adoo dhehaysid marka relaxan ku dhahay calm down slow haddaa slow keeni weysid magacaan social bilaash uma wato waa baawurka dhaqaaji weji ma lihi shala tiktok markaan soo galaa cidna ima keenaanaa iskeene marka meelaha soo gelina soo gashay laakiin remember iyo far aniga ninka dhabarka ka fadhidaysido hoostiisa fadhiyo raggaaga ka qaylisiina aniga naag intee joogtaa naag walbaba raggoodii markaan ka soo qaylisiiyo waxay leedahay wiilasheeniba raggiinaaba ka oosiinaya calashaan dumar intee joogaan raggiyaaba cabaadkii kari lahay taasoo ayaa naga qabta arabartaani kaarta qabtay yaa naga qabto arabartaan sooyaha waana dhiftay habartaan meela marka raggii ka oosiinayo yaa dumarkii intee joogaan marka caadis way adkaatay si taas yaa caadi maaha marka adduunyo waxaa la yaabayba adduunyo oo waxaan joognaa aabaheedu wasta oo macaankii ka dhamaatay markaan hawiyaha waxaa la yiri baarka sara aan u sareeyaa markaan hawiye kaaga soo degana oo waliba magaca saca siciid aan kuula imaado aniga hooyada galgala maahane naag waxa waaye sacadoo reer macaalayo baarka sare ka dhigayso boqortooyadiiyo magaca sacad iska daaya xataa magaca soomaali cidda ka dhalatana xushmadii sharaf ku leh aniga dee galgala ima dhalin dee galgalana hooyadee maahan am soo sore waxaa aadaa odagii galgala waxaa leeyahay aftigaa war wiilkii ii soo qora baan dhawat maxkamadda la keen jiray magaciisa muxuu ahaa wiilkii galgala magaciisa wiilkii galgala muxuu ahaa magaciisii
oo ma jeerteenka sheegto galgalaha oo Mareykanka joogo magaciisa ii soo qora magaciisa ii soo qora ninkaas ayaa abtigaya habeenkiina cabsano maalintiina jiife ninkaas u raadso marka naagta galgalana ma ahan galgalana ma dhalin am soo sorry galgala markay maqasho beerka xanuunayo moogta galgala ku reedaftay hadii la yiraahdo wadnaha xanuunayo wadnaha boqol itagi leo hadda ka hor markay ii sheeg milyan roble ay dhigi jirtay habartan daaha gadaasheeda ka qaylinayso habartan daaha gadaasheeda ka qaylinayso hadda daaha gadaashiisa dee faarka aduu ku soo qabto daariga ima soo qabanin naagtan naag faar soo qabtana ma ahan naag waxa waayad inta halkaas soo fadhiisata kaamiradeeda ayadoo qolkeedu ku jirto aabkayga soo dejina ii imaanaysa ay dheesay waraa ilaa waa gabar yar oo qurux badan ahayd bahabaran ku malayn jirayo leebkaygu ku jira waa duuban yahay wax beena xataa ma jirto ama kaamirada dhex fadhiyo ii daaran tahay iga qasneeno labadeedu lugood isku kee saaran tahay waxay dheesay gabar yar oo qurux badan ilaa ahayd marka eedo macaan reebtiyaasha la sheekayso galgala markaa maqashid beerka ku xanuuno la arkeen aftiyaasha waxaad ku tiraahdaa halo aftiyaal maqal ma jira boon xamaroode anaana wasay waana ka dhaansaday banaankaas ana keenay ragayga ooyay aniga intuu ii yimid waraasooy walaalo macaana waa ku bareen adeerayda iga fog marka rag baahana ka dhashay oo ninkan baahan yiri 50 milyan qaatay walina baahan oo sidii barbar hadda u waasha asagiina u waasha cisho saaxa ku dhasay hurdada ku yar maskiinkaana u malaysid tii dishay inuu qabo walaal saaxa ku dheh hurdu u baahan yahay nasiid u baahan yahay boon xamrow ha seexdo seexi walaalka jiifi ani walaalkay waa ii jiifay walaalka jiifi waraa waa dhansada miya odayga intuu maqan yahay alxamdulillah walaa tug ma arkiya adkaatay waxaan ku dhinta dhaansatay bad haddana oo aad bismillaahi raxmaani raxiim waxba ma jiro mudkaygaan gala allahu akbar adigii waa isku tuunbaraaca waxaad ku leedahay xabad mali ma qori baa tay marka xabad maya aniga xabad mali hide aniga naasa ma qabade naasa waa weyno baantii jilbaha maraya ilaaha kugu dhaarshay naasa xuduntii soo dhaafay oo jilbaha maraya anigu ma qabo anigu runtaa sheegaa mugta runta la igu naca annaas ma qabide naasa waa weyno jilbaha wallahi oo billahi oo tala adduunka ka qarin lahaa naasa waa weyn haddaan qabi lahaa adduunka taa ka qarin xijaab weyn isku daboolaan saas u socon lahaa walaalay soo naagta adiga ku caynaysa ama iyada u jawaabaysa ninkii balqaha ka keenay ma iska celiso oo idinka aad saaxiibo noqotiin xidigta jarmalka isa qalqaalay wax soo tuur ku dheh way soo tuuraysa maanta maadaysiin intaa idinka ninka iska celi lahaydeen maxaa isku kiindire walaalayaal ama banaaga heshiisiyaan warkaan shay hadda inta qolkaas fadhi wax ma sheegtaa intuu leef ku safray la hadda ma qofay caayo ilaahay ka baqay maxay hadda igu soo ceysay igu soo maaltaane haddaan iri barabeerada boqorka dhunkama intaas igu haysataane waa qasab haddaan ku leeyahay weli kaamiraduuna furanaa weli qasab sidii garyaqaanu kaamirada u furtay buu kana ku qasbaya inuu kaamirada uu furto ragna waxaa la rabaa inuu kaa dhasho daahir cali sababoo kale rag ma haysatidee rag waxaad haysataa sida dumarka u sheekeynayo anoo naaga aan ka cod weyn anoo naaga fiiri markaan hadlaya waxaa la ii maleeyaa inuu soo galay nin inuu hadlaya la ii maleeyaa ka waran waxaad rabtaa rag aniga iga cod yaryaro sida dumarka u sheekeyna bahaya may maqlaysa xalaabaayo meesha rag kuma haysatida naagaha ku haysataaye dirac yalow u soo xiran green soo xiranayaan isku keen ballami skinkan baahan oo every week uberka oo isha rentiga ku shaqeynayo walwalka ku haayo every week friday ama monday la leeyahay waa inaad dhiibtaa 1000 ama 700 US dollar dhig hadduu dhigi waayana baabuurka laga jiidanayo orad uberkaaga ka shaqeyso noloshaada raacada tiktok saaqad ma taale tiktok saaqad ma taal naag marka raggiina ka qeylisiiso istaaga ka ridaa waxaa rabtaa halkaas inaa usoo fadhiisa baqaaq tiraadid cc camera haddaan kugu soo duubin meeshaan kaa taa 7 jeer iska dhaq sida anaa ugu kara cc camera ugu soo qabtaa halka ugu soo qabanaya adoo lugta ka mid anaa buu kan mid ku soo qabata may loo fiiqay wallahi cc camera ku soo qabta wallahi ayuu urdiis ayuu ku soo qabaya adkaad na xidigtay soo dhow ولا كره uga baxayaan waxba ma cayn xidibta oo salaamaya walaashay ka qadan baa maanta wada salaamay toobi kala gal waa dhaansaday
هاي ناورك ولا كان تصير سنتون برا كيسكي نحن آوي هاي كيسكي مي مركي مراك هادن بي هاي كاكا سماعدان بس كفرسيس ولا لو ما ولا maxay kaga dhacay telefonkii ma garanay هذا اوكي oo kiiskii aad waday daartii flow garay dhamaantii yaman ka bilaabay kiiskii yaman ka bilaabay daayir baa mashquulay de okay maama dahaba ma loo dhameeyay keedina maama dahaba xitaa keedii wali lama galeen okay daahir halku ku maqan yahay hadda كل arrimo soo xalinaya arrimo fara badan mashquulka adduunka yaa kolay dahaba ninkeedu kula jiro xigta waa salaaman tahay bay ma maqayaan xigta jarmalka oo baa maqli jiray ilaa waxa kiisa ku wareejiya u dhiiba kiiskii walaalo maqayaa walaala salaamaya maama waraa xigta la wada salaamo la jamada maxaa la yiraahdaa noogu weyn ee cadaaladu agtaalo dadka Soomaaliyeed ayday manaal ay qarxiyaan wixii kiisa oo cadaaladaha u istaagaan sharafta ixtiraama horta manaal qolkeeda inaan taga waayo horta soo barto gabdhaha saafii maxaad iigu iman weyday maxamed daawud oo salaam abu alla jiista alla jiista waa bay dhageysanaysaa waa ka war khabaryaasha daani waa bariyaasha galgala ma ahan de safiicu kaasna abartii hooyada la dhalata maan hadda ku dhaayay maxaa ka bedeli kartaa aniga waji malihi habaryartay ani waxaan u aqoonsanahay qofka hooyada la dhashay oo naas la soo nuugay ama ilma adeer laxmi yihiin naag aniga TikTok soo gashay ilaa baalto gacandada taagi jirtay ya la dhihi jiray safiya siigo ana habaryartay ma ahan de walaal aqaldan nimcaala dawaaweey hadda banaankaas u maraya laakiin anigu galgale hatta bukulay anigu jima baliye naagta naag baqdana ma ahan naag gambatana ma ahan daa dabadiisana kuma jirto loogaheedana bira ugu ma jirtee naag hadaa tahay leefan soo galaya leefna waa ku jirtaa kaamirada diyaar ma u tahay no lugahaaga ku aadi lugahaygan ku aadina bal lugahaagana ku aadi zaciima siigoy lugahaagana ku aadi lugahaygana ku aadina naagta naag batana ma ahane naagta naag isqarisana ma ahan naagtaas quruxda ilaahay siiyey dir iyo joogna ilaahay siiyaan ay sinjiyo daawadaas dirkana waxaan ka keenay aabihii dhalay u maleysay Talyaani inuu yahay in cadaantii ka badatay oo dirka ka batay Hindiya qof aan aqoonin malaano reer Soomaaliya nasabada daawadaas ragaaga aan ka kufsaday oo istaagaan kiriday baa sidii meedka camal oo kale hurdalaan ku ridaa halkaas wada fadhiyo calashaan adigoo hadda intii lagu soo dhoofiyay Ingiriiska laga keenay balanaan kaaga qaadaan ku dhaa social media waxayse keenin inaan kuu keeno adoo gurigaaga baxay lugta ka dhigtina biro kugu jiro bas raacayo tuugsanayo inaan ku soo duubo oo baraha bulshada ku keeno boqorka dhulka ee hadda boqorada dhulka imaanayso ila itiraahdaa balan maskiinteeda kala jirinoo naasaha balaqaale car nabsaarta xataa diracaaga baatiga saas ma ku dhigi kartaa ma dhigi kartid de wax kaa waaweyn oo kaa soo horreeya u malaysid kaarihiis jiidkiisa naasaha kuugu yaalo ala habaryarteed dhaacayse daaniga habaryaashayda TikTok ma dhex fadhiya kamana sii geystaan mawgida wadaado waaye culamo waaye tusbaxay wataa hooyadii dhashaa kamid ah culamo halkaasay fadhidaa naan aniga baaltoog dhex fadhido ilaa TikTok dhex fadhiya kale habaryarta aniga habaryar iyo xaasiyadaa lagu dhahaa magac qabiilna aniga shaqadeyda ma ahan naagtaas baarka sare ka dheesho Soomaali oo dhan garab taaganahay nasabada hooyadaas qabiil aniga badari biyo ima siisto laakiin lafta aniga aan ahay waa ku isku meel marka nasabnimada iguma gaartid dadnimada iguma gaartid adiga hadda iska oy ilaa walaalaha ragaaga ka oosiiyey adna waa ooyeysaa adigana hee waad ooyeysaa iska oy wadaa saacadda waxaa ku soo jeediyey maad seexatid almost waxay kuu tahay teediyo kuu tahay maad hurdadaadi iyo noloshaadi iyo ilaa weekendii ahayd waa ilaa weekendii ahayd ilaa maanta waa Friday last night iska cab qamrigaaga aniga barteeda ka tahay fiyusna iguma raadsanaysid yaa naag haddaa tahay 2024 waa sii dhammaanaya 2025 kaamirada furo soo ag fadhiiso istaag soco hore iyo gadaal lugahaagana tusi yaa wali surwaal kugu dhaganaa soo xirna surwaal ugu dhaganaa soo xirna labada ninka biro ugu jiro ilaa qofku markuu biraha lugaha ugu jiro qaarka hore jilibka inta ka hooseysa bir yar oo dhuubana soo baxayso moogta bir yar oo dhuubana ka soo baxayso lama siri karo xataa
حتى لما صير كرس عمرك لو دار لطو كر وقاله موقت بركة war muxuu yahay dagaalkaani منال اسعيدين منال بقرتوي وانا maxkamadda maxaa ka madaxanuun dhexeeyay adiga manaal maxaa ka way soo dhexeeyay doondoonatay maanta dhan way ii tirinaysa daahiro war waxaas ceeb wey suldaamada dhaaf xisho soo maanta dhan waxaa lanaa niyo iga xishood subxaanaka yaa cadiim waxaa loo bixinayaa boqorka tiimka maxkamadda ما أنت ديني يرنا دعيو محمد أميجس كوجو قبتي تنايا لبنا إنه رئيس حاقة محمد أميجس كوجو قبتي u qabatay daahiro war ma hayside aye bismillaah markaas waxay waliba ma naxdo kulaha ingiriisi ku hadal markaas marna ingiriisi ku hadala marna hindi marna carabi naagtan naga celintay daahiro daahir jambalka loo tuuray daahir ma la soo daayay daahir hoosaan kuu fadhiyo hoos dadkan soo saarsaaraya amiira igu soo kacay amiira siixinay okay ya daahir ma la soo sii daayay nama naa saafi daaray hoosaan kuu joogo dadkan soo saaraya waa duubay iyada mid kale mahadsanid macaan mahadsanid guuleyso tiimka maxkamaddaas dhaafaa in lagu feeray markaa maqlay saafi aan xamara u socdo waa iska jooga wiilal badana ila dhashay waa ka baqay wallaahi billahi wax ma ogid hadday doonaan lugta inta kaa xiraan ay leeyahay xalay waadatee bir inta kugu xiraan aleesugu kaa wacaa wixii dad jooga meeshaan aniga dadkan caadi ma waa kansalay tigidki waa kansalay markii la saafi ilaaha idinku daarsha qof kastana waa sadaqa wallaahi billahi markaa tiri walaalkay ay dil cidii wiilal badan la dhalasheena taqaanay waa kansala tigidkayga safaaradda Britain ee ku taal Muqdisho ayaa warqad loo soo qoraan ku fakanaa maahine ilaah baan ku dhaartay lugta inta igaga xiraan biray dhihilaan madaxa looga jiraa wixii sheegaysa waa been ubax guray waa ka seexawaysa wallahi maalintii arintaada saafi kan abuurkaasaaba ka jira bacradii wallahi safita aqal marka dahabo arintii dahabo sii daa wallahi xilli dambe u tahay dahabo salaam calaykum kasoo waxmuudka arinta dahaba sugaynaa waxa oo dhan daahiro arin dahabo kasoo baxda muudka deena maqlay smoothy ku jirtay qadka laga xunyo ka casaaday waraa rasaasa dhacaysa daahiro rasaasta maxay tahay qol halkaasna rasaasa ka dhacaysa kana rasaas war soo mar iska waaltay wax u geeyay manaal maxkamadii wax ka tirsan tahay dhimala iska heshiinayna iska wax guraya iska taay walaal caadi weeyaan dahab maqlaysa dahab soo bax qaar waa ku maqlaa daahir salaamu calaykum waxaan kaga rabaa kiiskii waa galnay ninkii wax rajaa ma laha wax mustaqbala ma laha wax uu cunug ilmo ku ogolyaa ma laha ninka naagtaaba iska haysataba waa qof hostage ama loo haysto ma fahamta haye marka waxaan u tegay lawyer hay'adda bish laanqaarta cas in mataqaanaa kiiskaaga loo gudbiyaa la go'aansaday safaaradda xamar ay ku leeyihiin lagaa waco oo DNA lagaga qaado marka isagaa process gareeya wuxuu $10,000 u baahna ma fahamta marka lacagtaas 10,000 hadda kiiskii maamo oo lacag runteeda mooye kiiska kale waa iga dhammaaday oo ambaarey maam saafi ma fahamta marka had deertaan ayaan hawshaad usoo jeesaynaa marka lacagtiaan kugu guraynaa 10,000 looyarkiaan 10,000 ku siinaynaa marka 10,000 ku siinana asaga kuu diraya DNA-dii iyo safaaraddii iyo dacwaddii iyo laaqeyrta cas isaga wixii kaa xalinaya ma fahamta oo booliiska la xiriiraya marka broseskaas waa baxaya waan u tegayaa isku mara uu tegayna looyarka waa qaadayaa manaal waa uu tegaynaa looyarka aada weyn isku raacna insha allah marka saasaa arrintii aan ka dhigaynaa wax kasta sharci wey wax dagaala ma jirto cay ma jirto sharcigaa lagu kala baxayaa sax waa cay wax jira ma baahanba marka iska seexo intasa kuu sheegaya wiigaan ku soo wacaynaa lacag aruurintaan bilaabaynaa 10,000 maaha ku dubaridaynaa insha allah insha allah dumarlaan qolkooda yacni waa in lacagta qayb lagu qoro qolkan waa inaan qolalka badan kala qaybsanno lacagta sida ugu dhaqsiyaha badan xidigti way joogtaa siriicaad way kuu joogtaa manaal waa kuwan dumarlaanna qayb in la siiyo qolkan qayb la siiyo
qolalka kale qolalkeena kalena loo qaybiyo 10 kun inaan sidaan ku heli lahayn ugu yaa dhaqso balaarinaya إن yaa شاء الله balaarinaya سيدك دقيقة كويلنا بين الله مركو داير نوصل شغوي naagir badiitoojin oo samayna caaw may yaa balaarinaya anu waa garan lahay iga tahay balaarinta cabdiriya cabdiriya أيوة كيس وانا يا كيس ما هاي gabadhi mayna maxay tadiig joojin sameyn looyaradaada looyarada kugu garab daalay habeen kasta ما يلا يردي سوحك إنما وقع حتى إنما وقع والله كتير بالله maa wala samayna joojin والله kiiskii kale u dhiib daahir xidigta afayeenka looyarada in lagaa dhigo waayo إنما وقع وحبا إنما hadda وقع kadib haa waa layga dhigaya daahir u dhiibta kiiskii kale